wakiilka gaarka ee urur goboleedka IGAD ee Soomaaliya Danjire Maxamed Cabdi Afey oo shir jiraa'id ku qabtay Muqdisho ayaa kaga hadlay dhowr arrimood oo ugu horeyso mahadcelin uu u jeediyay shacabka iyo dawladda federaalka ee Soomaaliya qabsoomida shirkii wasiirada arrimaha dibadda ee urur goboleedka IGAD oo shalay lagu soo gabagabeeyay magaalada Muqdisho. Danjire ayaa tilmaamay in Soomaaliya ay shirkaasi shalay ku soo bandhigtay waxyaabo aad u muhiimsan waxa uu inta uu ku daray in beesha caalamku ay aad ula dhacsan yihiin horumarka amni ay ku talaabsanayso dawladda federaalka ee Soomaaliya. dawladda federaalka Soomaaliya uu hogaaminayo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud inaan runtii si diiran ugu mahadceliyo shacabka ku nool magaalada Muqdisho oo soo dhaweyn iyo farxad iyo kalsooni fara badan muujiyay isla markaasna runtii bedelay aragtida madaxdii halkan imaatay sidii loo martigeliyay sidii loo soo dhaweeyay si hidaha iyo dhaqanka ma aragtay ay u soo bandhigeen wixii Soomaalida lagu yaqaanay oo soo dhaweyn ahaa. arrintaasi runtii waxay fariin u tahay caalamka inta wali qiyaasaysa oo isla Soomaaliya wali isma raacin oo dawladnimada taam ma noqonin. waxaa ku filan wixii halkan ka dhacay shalay iyo daraad inay fariin toos u noqoto. wakiilka IGAD ee Soomaaliya ayaa hoosta ka xariiqay in ciidamada dawladda iyo kuwa AMISOM oo iskaashanaya ay ku guuleysteen xaqiijinta amniga caasimadda iyo gobolada kale ee ku teesan, isagoona xusay in IGAD ay soo dhaweynayso dadaalada dib u heshiisiineed ee u dhaxeeya dawladda dhexe ee federaalka ee Soomaaliya iyo maamulka Somaliland, ayadoona arrintaasi gacan ka geysanayaan dawladaha Djibouti iyo Turkiga. Waxaan u mahadceliyay dawladda Djibouti, madaxweynaha Djibouti oo runtii in muddoba inta burburka dhacay isku taxluujiyeen inay Soomaaliya wadajirkeeda iyo dawladnimadeeda iyo karaamadeeda runtii ay noqoto midii horaan loo yaqaan, isla markaasna runtii aan soo dhaweyno dhiirigelino aan adeeg siino dawladda federaalka Soomaaliya wada hadalka ay kula jirta Somaliland. taasna runtii waa mid aan isleenahay warmutiyeedkana golaha wasiiradu way ku muujiyeen. anigana ka ergey ahaan aan rabaa runtii inaan hoosta ka xariiqa muhiimadda ay leedahay in la wada hadlo oo la heshiiyo. maxaa yeelay aan wada hadalna waxa weeyaan aan heshiino. cid ku wada hadli karta inay isgafta ma jirtaan. wax sababta loo wada hadlaa in lagu heshiiyo weeyaan wixii ka dhaxeeya. Danjire Maxamed Cabdi Afey ayaa sheegay in qodobo muhiim ah ay ka soo baxeen shirkii wasiirada arrimaha dibadda ee urur goboleedka IGAD, kuwaas oo ay ka mid ahaayeen hirgelinta nidaamka federaalka ah oo ay dawladdu wax badan ka qabatay iyo higsiga cusub ee sanadka 2016 oo ku tilmaamay in ay iminka muuqanayso ifaallo arrintaasi ku saabsan. war murtiyeed dhowr iyo 20 qodob ka tirsan waxa ugu muhiimsan oo runtii anigu aan rabnaa inaan hoosta ka xariiqno waxa weeyaan sidii beesha caalamka iyo urur goboleedka IGAD ay diyaar u leeyihiin inay garab istaagaan dawladda Soomaaliyeed oo matalaysa shacabka. qorshaha dawladda u yaala oo wada ognahay oo la yiraahdo higsiga 2016 waa qorshe beesha caalamka iyo urur goboleedka IGAD ay runtii rabaan wax walba oo qorshahaas ku suurtageli kara in loo sameeyo. marka waxaan isleenahay oo warmutiyeedkana ku qoran hadda intuu sanadkan uusan dhamaanin inay noo suurtagasho inaan halkan ku shirna oo shir lagu qabta ay ka soo qaybgalayaan madaxda urur goboleedka IGAD heer madaxweyne. 28 sano waa waqti badan oo lagu shirin caasimad wadan caalamka ka tirsan. in waji cusub la sameeyo loo bedela wixii horaan Soomaali lagu yaqaanay inta muddo 22 sano hadda burbur dhacay runtii tirtirtay qarannimo iyo wixii Soomaali ku faani jirto idil
hadda waxaan rabnaa sanadka intuusan dhammaanin inaan halkan runtii ka suurtagelin inay madaxdu ku shiraan kan wuxuu ahay shir hordhaca markay taas suurtagashana runtii waxay fariin u noqonaysaa cid walba oo diidaneed qaranimada Soomaaliya inay hadda Soomaaliya qaranimada la soo noqotay inay caasimadda lagu shiri kara inay shacabkeeda diyaar u yahay dawladnimo marka arrimahaas waa arrimihii aan rabnay hadda shirkan aan ugu yeeray inaan u mahadceliyo shacabka ku nool caasimadan iyo dawladda federaalka Soomaaliya. shirkan jaraa'id ayaa imaanaya xilli shalay Muqdisho lagu soo gabagabeeyay shirkii 53aad ee wasiirada arrimaha dibadda ee urur goboleedka IGAD kaasi oo si wanaagsan ku soo idlaaday ayadoona ka qaybgalayaasha shirka ay dawladdu ku amaaneen martigelinta shir noociisa oo kale. Cabdirashiid Nuur Ibraahim, telefishinka qaranka Soomaaliyeed, magaalada Muqdisho.